ma noolaan kartaa wadna la'aan mase aaminaysaa haddii aan kuu sheego in ka badan sanad qof uu noolaa wadna la'aan? haddii aad weysay qayb ka mid a jirkaada kama dhigna inaad tahay qof aanan awoodin waxba ama liita. ninkan aad aragtid kuna muuqda wuxuu noolaa 555 maalin wadna la'aan. dhaqaatiirta ayaana ka saaray xubinta ugu muhiimsan jirka bini'aadamka, balse markii laga saaray kadib wuxuu u sii watay noloshiisa si caadi ah, wuuna neefsan karay, wuxuuna u noolaa sida dadka kale. maxay ahayd sababta dhaqaatiirta uga saareen wadnaha? sidee buu u noolaa? ugu dambeynsa maxaa dhacay 555 maalin kadib? ma aaminsan tahayse in wadna la'aan qof uu noolaan karo? tani waa qiso iyo warbixin dhiirigelin ah, noloshaadana beddeli karta haddii aad tahay qof waayey qayb ka mid a jirkiisa sida gacan, lug, il iyo wixii la mid ahba. ninkan wuxuu in muddo ah noolaa iyadoo jirkiisa laga saaray xubinta ugu muhiimsan jirka bini'aadamka ee ayna adag tahay in la noolaado xubintaas la'aanteed, waana wadnaha. wuxuuna wakhti badan la dagaalamayay xanuun kaga dhacay dhanka wadnaha, kaas oo sababay in ugu dambeyn laga saaro wadnihiisa. waxaana iska macquul ah in sheekadan aad u qaadato iska hadal iyo khiyaali, balse waa xaqiiqo dhacday kuna dhacday ninkan muuqiisa kuu muuqda. Stan Larkin waa ninka qisadan ay ku socoto, muuqiisana aad aragta hadda. dhaqaatiirta ayaa qaatay go'aan adag oo kala doorasho ah, nolol ama geeri, maadaama wadnaha ninkan uu fashilmay, shaqadiina gabay, taas oo murug iyo naxdinba ku abuurtay Stan Larkin iyo dhaqaatiirtaba. wadnaha Stan wuxuu awoodi kari waayey in dhiigga uu bambeeyo, si nadiif ah u shaqeeyo, qabtana shaqada looga baahnaa. ninkan murug iyo dhibaato nafsiyan ayaa soo wajahday maadaama uu rajo ka lahaa nolosha. dhaqaatiirta ayaa qaatay go'aan aanan fududeen, macquulna ee tahay inuu geeriyoodo bukaanka ay daaweynayeen, oo ah in laga saaro wadnaha. laakiin dhaqaatiirta ka hor go'aankooda su'aalahan bay isweydiiyeen oo kale ah: maxaa ku dhici kara Stan haddii qaliinkan uu ku fashilmo? ma sii noolaan karaa? iyo su'aalo kale oo macquul ay tahay inaad adiga isweydiinaysid. balse ninkan markii dambe waa laga saaray wadnaha, wuxuuna u baahday wadne, laakiin macal asaf muusan helin. balse waxaa la qorsheeyey qorshe cusub oo ah inuu noolaado wadna la'aan iyadoo la adeegsanayo qalab casri ah, kaas oo si kumeel gaara u buuxin kara booskii wadnaha. inkasta uusan qaban karin waxa uu qabto wadnaha caadiga ah, haddase muxuu yahay qalabkan wadnaha booskiisa u galay Master Stan? si u sii noolaaday Stan Larkin noloshiisana si caadi u sii wato, dhaqaatiirta ayaa hindisay wadne artificial ah ama gacan ku samays oo ku sii meel gaaro. wadnaha waa qalab fudud oo ninkan ku qaadanayo boorsadiisa ayaana loogu ridayaa 555 maalin kadibse ninkan noloshiisa caadi bay ku soo laabatay. marnaba ha ka quusan nolosha. lug, il, gacan iyo qayb ka mid a jirkaada oo aad weysay kama dhigna inaad tahay qof liita haddiiba wadna la'aan sanad iyo ka badan uu noolaa. ninkan la wadaag qisadan saaxiibada kale oo ka quustay nolosha kuna dhacday waxaa ku dhacay ninkan oo kale.